بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي محمد عبد الله كاهين قدوميها حسبك وطني ودن وينها سويدن وحان ساكو اي تاريخ تهي لحية طبانكي بشي ساقالات 2020 ربائير إنان استلتاغو kadib markii aan ku soo laabtay wadanka 3 sanadood kadib halka marxaladda guud qarankeena barakaysan uu marayo doorashadii kadib waxaan rabaa inaan in yar isdul taago generally nolosha guud ahaan halkii ay taagneed 3 sanadood ka hor iyo halka ay maanta marayso waxa mar walba muhiim ah in xukuumadda timaada ay mar walba ay eegto qiimayso waxa sanad walba ama time after time ba ka dhacay qaranka iyo waxa u soo kordhay waxaan marnaba indhaha laga weecin karaynin runtii sida ay nolosha muwaadinka iyo nolosha bulshada guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland ay noloshoodu runtii tahay mid ay hoos u dhacday waxa mar walba ay tahay in la xuso in iyagu shacabku ama base ummadu ay iyagu noloshooda dadaalayaan oo dadaalku yahay mid xaggooda ka socda waxa horumar qaranku gaadhay waxaan oran karaa 80% waa mid ay shacabku iyo ummadu iyagu ay qabsadeen oo iyagu ay dadaalkooda dheeraadka runtii ay geliyeen waa mid aan uga mahad celinayo runtii waxa meesha ka baxday adeegii aasaasiga ahaa oo ay ugu horeeyaan wixii la oran jiray haday tay dhinkii wadooyinka haday tay tayadii waxbarasho ee dhalinyarada ubadkeena soo koraya hadii ay tahay noloshii oo guud ahaan maciishadii oo kor u kacday oo sixir bararkii uu maalinba maalinta ka dambaysa uu kor u sii kacayo hadii ay tahay biyo la'aan baahday oo saameysay guud ahaan qaranka haba ugu sii daraato caasimadii oo iyadu hadaan oran karo 40% maaha inta biyo joogta hesha waxa weeye markaad ku soo ururiso arrimahaas oo dhan arrimaha la doonayay in ay dawladdu iyada oo runtii ka qaada cashuur oo muwaadin kasta oo ama meherad haysta ama company isagu u shaqo tagaba ka qaada iyadoo cashuur ay ahayd inay ugu adeegto in ay meesha ka baxday waxa kale oo runtii ina baahday oo aad moodaa maalinba maalinta ka dambeysay inay sii kordhayso waxa weeyaan shaqo la'aantii oo iyadu xad dhaaftay inagoo og in ay sanad walba jiraan kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu jaamacadaha ka qalin jabinaya si joogto ah ayaa haba yaraatee waxa meesha ka maqan oo haabkeediina xukuumadda maanta joogta aanay haynin ay tahay sidii shaqo loogu abuuri lahaa da'yartaas sanad walba ka soo baxaysa jaamacadaheena waxaad moodaa sanadaha sanadood runtii ka dambeysay doorashadii in qaranka sii furfurmayo oo maalinba maalinta ka dambaysa uu qarankeeni hoos u sii socdo may ahayn maanta inaynu ka fikirro in wadooyinkeenu uu gaadhigu kula mari kari waayo waxa weeyaan waxaad arkaysaa meelo runtii aad oran karayso waa boholo baabuurku uu ku dhacayo waxa weeyaan yani waxay ku tusaysaa in aan haba yaraatee wax balaana oo haday tay dawladda dhexe iyo dawladda hoose ay ka leeyihiin aanay jirin dhanka wadooyinka waxa weeye caasimadeena waxaad ugu dhex imanaysaa yani wadooyin go'an oo aan haba yaraatee ka hor iyo kadib toona sidii ay u timi xukuumadanu aan wax haba yaraatee shaqo ah oo laga qabtay aanay jirin waxa mar walba aad arkaysaa shacabka oo iyagu dhankooda ka dadaalaya balse waxa muhiim ah in ay xukuumaddu ku soo noqoto aasaaska loo baahan yahay madaniga ah everyday ay u baahan yihiin shacabku haday tahay caafimaadka
hadday tahay wadooyinka hadday tahay waxbarashada hadday tahay amniga iyo hadday tahay maciishada kordhaysa ee maalinba maalinta ka dambaysa iyadu ee kor u sii kacaysa waxaas waa arrimaha la doonayo inay xukuumaddu wax ka qabato hase ahaatee ay ku fashilantay waxaan leeyahay saddexdaas sannadood ku dhowaadka ay xukuumaddan maanta joogtaa ay joogto Somaliland halkii ugu hooseysay ayaa marka guud ahaan la eego maciishad ahaan iyo nolol ahaanba aynu maraynaa xisbi ahaan runtii waanu noodgaraynay arrimahaas iyo qaar kaloo badanba insha Allahu tacaala siday tayna waan uga hawlgalaynaa waayo shacabkan iyo qarankani waxa uu baahan yahay hoggaan daacada oo ku shaqeeya sida ay tahay dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh